toddobaad ee ilaalada madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliyeed iyo taliska ciidanka booliska iyo taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed qaybahooda kala bedelan waxaanu u soo baxnay isxilqaankaas oo ku muujinayno kuna hagaajinayno bilicda taariikhda ummadda Soomaaliyeed marka idin leeyahay taariikhda ummadda Soomaaliyeed marka idin leenahay ummad waliba waxay astaan ku leedahay ama dunida ay kaga duwan tahay ama lagu gartaa waxa iyada taariikhda u ah ama ha jeclaato ama ha nibcaato laakiin waa taariikh iyadu ay leedahay oo ay dunidu ku taqaano way oo kaga bedelan tahay sidaa daraadeed Sayid Maxamed Cabdullaahi Xasan wuxuu taagan yahay halkan ummad Soomaaliyeed Axmed Gurey wuxuu taagan yahay halkan ummadda Soomaaliyeed iyo xurriyadda aynu maanta haysano xaawataako sidoo kaleeto Cabdullaahi Ciise iyo Dhagaxtuur sidoo kaleeto iyo 13kii dhalinyarada SYL ayay u taagan yihiin intaa kadib markaynu isxilqaanka iyo bilicda aynu muujinay oo dhamaanteen aynu isu kaashanay shacbiga Soomaaliyeed iyo ciidamadooduna ay tahay inay iskaashadaan waxaan halkan baaq uga dirayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir mudane Cumar Finish waxaan ka codsanaynaa toddobaadkiiba maalin inuu u sameeyo taalooyinka iyo taariikhda ummadda Soomaaliyeed nadaafadooda inuu maalinkii toddobaadkiiba inay helaan maalin nadaafadooda laga shaqeeyo boorka laga qaado bilicdooda la muujiyo ayaynu codsanaynaa haddii Allah awood leh ogolaado oo dawladda hoose ay qaadato qaybta arrintan waxay naga ahayd fariin waxay naga ahayd muujin waxay naga ahayd baraarug waxay naga ahayd haddii Ilaahay ku idmaayo in loo soo dhiirigelin bay naga ahayd marka insha Allah taala waxaanu rajaynaynaa codsigaasna aan u diraynaa gudoomiyaha gobolka Banaadir baan u diraynaa in toddobaadkiiba maalin loo sameeyo bilic hagaajinta haddii Ilaahay ku taalooyinka iyo taariikhda ummadda Soomaaliyeed iyo halgamayaasha ummadda Soomaaliyeed si ay u bartaan ubadka Soomaaliyeed toddobaad walbana ay uga soo baxaan haddii Ilaahay ku idmaayo baraha bulshada iyo TV-ga qaranka ay uga soo baxaan taas waxay keenaysaa dhalinyarada Soomaaliyeed iyo ubadka Soomaaliyeed in qalbiyadooda ay ku dhigmaan intaas aynu uga jeednaa waa u soo qubaynay sayidka xiin fariin faraski waa u soo qubaynay xaawataaka waa u qubaynay walow aanan haysan imkaaniyaadkii oo aad uga xunnahay oo aynu jarooyin dhaadheer iyo wiishash aynaan haysan dhagaxtuur aynu ku gaarno insha Allah taala waxaan rajaynaynaa qalabkaasna in la heli doono gudoomiyaha gobolkana fariinta u diraynaa insha Allah taala waana naga dhiirigelin way wax kale naga baa gudoomiye waa naga dhiirigelin ciidamada qaybahooda kala duwan sida ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ciidanka booliska Soomaaliyeed ciidanka asluubta Soomaaliyeed iyo kooxda iskumaan iyo ciidanka nisa waxaanu qabanay shaqo qaran waxa weeyaa waxa naga go'an anagoo dalkii difaacayna oo waajib gudashadayadii qaran u taagan ayaanu waxaan isu xilqaanay isuna kaashanay inaan taariikhdii dalka boorka ka jafno sidaad ogtihiin halgamayaashii u soo halgamay dalkan haday tahay Sayid Maxamed Cabdullaahi Xasan Dhagaxtuur Maama Xaawataako SYL dhalinyaradii Soomaaliyeed 13kii SYL oo horseeday dalkan xurriyadda ilaa Axmed Gurey xurriyad aan maanta haysano qoon waliba oo dunida ku nool wuxuu boorka ka jafaa nooleeyaa taariikhdiisa waxaan wax ku nahayna waa taariikhdayada waxaanu go'aansanay maadaama madaxda xukuumadda iyo madaxda dawladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay dalkii bilicdii soo cesheen taariikhdii nooleeyeen kala dambeyntii sharciga iyo nidaamkii ay bileen horumar ay ku hageen dalka una heelayihiin annaguna aanu taaganahay difaaca dalka naftayada aan u horeyno waxaanu go'aansanay horumarka socda qaybtayada inaanu kaalin libaax ka qaadano waxaanu taaka yaraad qabataa oo horumar wanaaga horumarka ka mid tahay waxaanu aragnay sayidkii iyo faraskiisii xiin faninaha oo boor soo gaaray ilaan dabayl baa dhacaysay booroystay waxaanu aragnay dhagaxtuur oo booroystay waxaanu aragnay buuggii uu haystay ninkii la oran jiray Shaqaawadiin oo kamid ah halgamayaashii asne 13kii SYL oo boor qariyay waxaanu aragnay Maama Xaawataaka oo boor qariyay gabar baan wehelisa waxaanu nahay afar ciidamada qalabka waxaanu nahay xoogga dalka waxaanu kaga soconaa 3 nin booliska waxa ka socda nin asluubta waxa ka socda nin nisa waxa ka socda nin kooxda iskumaanna waxa ka socota gabar iyo wiil marka waxaan ugu talagalnay Maama Xaawataako gabadhu inay dhaqdo way gaari weyday laakiin maamada ana rusheeyay sayidkii waa soo dhaqnay faraskii waa u soo saliidaynay kareen baan u soo marinay mid kamid ah arimihii bulshada ee aan u taagnayn ee ahaa wacyigelinta iyo hadii Ilaahay bilicda ka qayb qaadashada iyo qurxinta dhulkeena annagoo la socona ciidankayaga qalabka sida afartiisa nuuc
marka ilaahay mahadiis waxa ah inuu ku guuleysano oo wax badan maanta soo qabanay xaawata ka waatana hadda u indha kuulnay oo nadaaminay waa arkaysi meel walba waa nadaafinay sayidka iyo faraskiisi waa la soo nadaamiyay dhagax tuur ilaa iyo SYL waynu soo dhaqnay mana ahan mid maanta kaliya nagu ahaanaysa cimrigayaga inta joogno waynu dhiiri gelin doonaa waynu qaban doonaa inagoo kaashanayna ciidankayaga qalabka sida afartiisa qaybood marka alxamdulilaahi rabbil caalamiin bulshada Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa cid waliba inay ka qayb qaadato nadaafada iyo quruxda magaalada cid u gaar leh ma jirto qof waliba meeshu ka soo gaaro iska xilqaamo ma ahan xaawataakii sayidkii kaliya inay u baahan yihiin in la nadaamiyo meel walba dalkeena kamida ayaa u baahan in la qurxiyo waa inaynu qurxinaa nadaaminaa walaalahayaga ciidankayaga waanu garab taaganahay meel kasto ay ka shaqeynayaan waa garab taaganaanay inagana positionkeena kama marin 24 saac waa u taaganahay waana u taagnaan doonaa deynuna ciidanka oo qalabka sida qaybihiisa kala duwan sida military ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ciidanka booliiska Soomaaliyeed ciidanka asluubta Soomaaliyeed maanta si isxilqaana ayaan waxa isugu nimid in aan dayactirno oo nadiifino taalooyinkii geesiyaashii halganka ah inaan nadiifino isku xilqaan horta wax badan aan soo qaban waxyaabo badan ee qalab laana inoo suurtageliyay waa iska jirtaa oo yaryar intaas gadaal ma ugu laaban laakiin waa gaarina ayadan laakiin waxa muhiimadda ay tahay in haddii shacabta haddaa ciidan tahay intaba inaad diyaar u tahay difaaca dalka iyo horumarka dalka intaasaa muhiim marka waxaan guubaabinaynaa ciidamada kale iyo dhammaan intiina waajibaadka saaran walba haymaado ah isxilqaamo maalin wanaag haddaa qabat taariikhday ku galee xumaan haddaa qabatan taariikhday ku galee marka waxaa muhiim ah madaxdeena maanta way dadaaleen wadankii oo qaabnaa oo taalooyinkii halgamayaasha ay ka maqan yihiin ay noo sureen annagana maanta waxaan diyaar u nahay inaan booska hid ka wadno inaan wixii ay noo keeneen noo qabteen annagana aan wanaajino nadiifino dayactirno dhisno hagaajisano dal walba dadkiisa dhis annagoo isku duuban shacab ciidan madax kulli waxaan diyaar u nahay inaan dalkeena wada dhisano macdanta dahabka muujiya wanaagay adinkiyo aqoonta yagaan ku adeeganayna